كنت معنا وناكسن مركلة صاحب يال صاحب ده هو ده أنكو كلنا يو وحيد الله يهاي مالي وناكسن هبي وناكسن وقت بيكون تاي أو وناكسن جمعة مبارك على ومقالكي سادالين توريال كبريميليجا وريال كالدنيا ووحي ساي حماسة بدن وأسبوعي تمنات وريال كبريميليجا أيان سادالين يا أسبوعي سجالات ما أنا سادالين أو مقال وسوق لواي علة فرسمة أوجد ويا صاحب يال سودو هذا أحب إنه مقال كان إذا سوقاري دونه كل ما دورة أو حساب بدن أياجر أسبوعا وأنا أسبوعي تمنات وريال كبريميليجا كلن كانوا جوه الرياض دان ساداليو وكلن كان أحمر دونه كوحة بانلي كوحة أرسنال مالمهان بشي أكتوبر لصور دافي واحد جوله لجمدل أرسنال بش نوفمبر نسيدا سوكالي مية سمي دونان وحل عيار دونان كوحدة دوان كسو دلعني جامبيونشيبكا بانلي يمعلن سكوت باكا على تيتا يحرتيسا جولش شبقوده وإلى السدين كل مدينة سودافي معكو سادالي كل كاسينو كل ما دونو لما قولي وحبا أرسنال واتكا دونان كل كان اللبات وكل كا isla waqtiga 3 o'clock soo wada gali doono kooxda Nottingham Forest markay soo dhaweeyaan kooxda Man United macallin Robin Almiron wuxuu badiyay 3 kulan oo isku xigta sida uu yimaaday horyaalka Premier League waana markii ugu horeysay oo lagu soo daro macallimiinta u sharaxan abaalmarinta bishii October sida daraadeed macallin Almiron waxaan u saadaaliyay inuu ku adkaa doono 2 gool iyo 1 ee away soo badi doonaan كل كان سدحات وكلنك دربي لندن دحمر دونه كوحا توتنهام كوحدا تشيلسي توتنهام واحد داوع ugu maqamanahan sida macallinka shirjina ku sheegay Chelsea daawac door ay qabaan waxayna ku sii darsadeen red card Chelsea ciyaartooyda oo aad u daayar waxay ku darsadeen akhlaaq xumo iyo discipline la'aan ciyaaryahan walba garoonka soo galo red card keeni ayaa dib u sii bilaaday dilab lama heli doono kulankan sida daraadeed kulanka derby london alaabane kooxda Tottenham 13 kulan ee isla ciyaareen labadan kooxood Tottenham iyo Chelsea kaliya Tottenham waxay adkaadeen hal kulan inta kale kooxda Chelsea ama baraja ayuu ku dhamaanay sida daraadeed kulankani waxa ku saadaaliyay inuu ku dhamaan doono maadaama lagu ciyaarayo guriga Tottenham ciyaarta inay ku dhamaan doonto min 2 gool kulankan u dambeeyay ee maalinta Sabtiga waa kulanka dhaxmari doono kooxaha Aston Villa iyo kooxda Liverpool oo la daalada dhaceyso 7 kulan ee u dambeysay 6 kulan ayaa laga soo adkaaday kooxda Aston Villa kulankii u dambeeyay horyaalka Premier League waxay ka adkaadeen macallin Pep Guardiola iyo xirtiisa iyo Man City kooxda Liverpoolna miyay ku dari doonaan macallin Unai Emery markuu la ciyaarayo kooxaha waaweyn si fiican ayuu la ciyaaraa Aston Villa iyo kooxda Liverpool waxaan ku saadaaliyay ciyaartaas inay ku dhamaan doonto min hal gool kulankan ugu dambeeya ee Big Six-ka waa kulanka kooxaha Bournemouth iyo kooxda Man City waxay wajahaysaa koox dardar fiican ku bilaabatay horyaalka Premier League Pep Guardiola ciyaartoydii ka maqneed dib ayay u soo laabteen oo dhaawacyo ka soo laabteen weliba Rodri ayaa soo laabtay balse lama heli doono ciyaarta Man City iyo Bournemouth waxaan ku saadaaliyay inuu ku dhamaan doono min 3 gool wuxuu noqon doonaa kulan xasaasi ah ama kulan xiiso badan ciyaartaasna waxay ku dhamaan doontaa min 3 gool intaas ku soo gabagabeynaa maantay muuqaalkii aan uga hadlayay saadaalinta haddii ay tahay markaad kuugu horeysay oo soo booqato fadlan waxaan ka codsanayaa inaad page-ka follow daadid laagtaada oo baahanahay soo u gaaro saaxiibo badan page-kana waa lagu dhagan yahay weli 10 kun wax yar ayaa nooga dhiman fadlan ka qayb qaado oo 10 kun na gaarsii oo ku maasanta mar kale daawashada muuqaalka inta kulmi doono muuqaalka xiga sidaas iyo nabadgelyo